shirkan ballaaran oo lagu taageerayay guulaha ay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ka soo hayeen gobolada Baa iyo Bakool oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah aqoon-yahanada odayaasha malaqyada iyo dhalinyarada jaaliyada Digil Imirifle ee ku nool dalka Sacuudiga Carabiga ayaa xalayta lagu qabtay magaaladaasi Jeddah. shirkaasi oo si weyn loo soo qaban qaabiyay ayaa waxaa dadkii halkaasi ka hadlay ay si qira leh u soo dhaweeyeen dadaalka ay ciidamada qalabka sida ka wadaan nabad ku soo dabaalida guud ahaan dalka, waxayna ugu baaqeen soo majeystayaasha ciidamada inaysan marnaba hakin howlgaladooda ilaa ay gacanta ku dhigaan meelaha weli ka baxsan gacanta dowladda Soomaaliya, taasoo ay ku tilmaameen inay tahay midda kaliya ee keeni karta inay si dhab ah u fulaan istaraatiijiyadda iyo qorshaha dawladdu ugu talagashay inay ku horumariso guud ahaan Soomaaliya. haddaba intii uu socdo shirkaasi ayaa waxaa ka hadlay Cali Aadan Xasan iyo Idris Aadan Cali oo ka mid ah jaaliyada Jeddah, waxaana hadaladooda ka mid ahaa dhammaan may baan ku salaamay dadka ma aragnay xafladan qiimaha ay qaayax badan leh qaban qaabay oo ma aragnay hatta goojoogu ku ay ma aragnay xafladan oo linka talagalay in ma aragnay la ka taageera dadka gobolada Baa iyo Bakool iyo Gedo ka nool, dadka dhammaan Digil iyo Imirifle meelba iyo roogan intii la fadhiday intii ma aragnay noomagan may bahan jeediyaane taageero una ka taageersana dawladda goboladaas galantiyaha gali iyo ma aragnay taageero buuxdo intaan ku jeediyo wayn may ba ku codsadaan dawladda ku meel gaarka in ma aragnay howl badan lagu qabado oo la sida la kawadiisa ku sii daro ma aragnay nimanka lagu ku xoreeyo gobolada inta dhamaan ma intaan bariyahan ku jeediyay ciidamada qalabka sida oo Soomaaliyeed si nabad geliye sidiidas gobol ay ku qabsadeen oo dib iyo rafaad wal kasta bixin maraan maanta in ku damboyti goboladii Baa iyo Bakool qodan Gedo marhor qobaday iyo hambali in jeediyay in Ilaahay guul iyo gargaarsiyo may kala in sheegay in gobolada kala dhimilito gobol Digil iyo Imirifle lito gobol Digil iyo Imirifle in may waa ay qobadaan iyo la fadeeho Ilaahay raali ka noqdon mayna in sheegay jaaliyada Digil iyo Imirifle mamlakada Sacuudiga Carabiga ku nool amba meel kasta ku nool Digil iyo Imirifle in guntudan wadansho sidii ay horay fadan oo hal mid in ka nagad fadan. intaasi kadib ayaa waxaa halkaasi erayo muhiim ah oo lagu taageerayay ciidamada qalabka sida ka soo jeediyay Aadan Xuseen iyo Muuse Iimaan Xaaji. taageerno oo dadkaasi xagga noo jiraan inaan warabyo istaagno wala alaala wixii rabaana alan weelno kulli ilaahi khayran waafijiyo. assalaamu alaykum. markan koreeyta may taageersanaa kuurgalkan kuurgalan ciidamada oo dawladda Soomaaliya han kuurgaleeno Baa iyo Bakool iyo Gedo gobodeen ya taageersan. munaasabadaasi oo uu ka soo qayb galay gudoomiyaha jaaliyada Digil Imirifle ee dalka Sacuudiga Carabiga mudane Cumar Mursal Yaxye Cumar Bongo, waxaana ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay Xuseen Maxamed Yarow. may walaha tiiday garatan leey Digil Imirifle nasqooyinkan ku soka kulankan khayr haaday wa bacdaha madinaga yani qobashada gobolada ama hajiirintii ama ruugistii taageer ahaan unay aftaraalaysan. si kastaba ahaatee jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka dibadiisa ayaa waxay taageeradooda ay u hayaan ciidamada qalabka sida ay ku muujiyaan kulamo iyo shirar ay ku qabtaan dalalka ay ku nool yihiin.